sidee loo daaweeyaa dildilaaca ama jeexjeexa yacni cirbaha oo sida hortiina ka arkaysaan qofka cirbaha inay noqdaan ama maqaarka halkan yacni sidan oo kale midabkiisa u ekaado maqaarkan oo aad u adkaado ama dildilaacan faraha badan leh oo yeeshto sidee loo daaweeyaa insha allah waxaan kula wadaagi doonaa sida aad iskaga daaweyn karto cirba dildilaacan adiga oo gurigaada joogo balse marka hore waxaan sharxaynaa waxa sababo qaladaadka haddii aad samayso qayb weyn ka qaadan karo in xaaladan yacni kugu soo laalaabato kow waxa waaye sida hortiina ka arkaysaan haddii qofka yacni taagnaanshihiisa ay badan tahay oo shaqadiisa oo kale ay u badan tahay taagnaan goobaha yacni inta badan qofka inuu taagnaado loo baahan yahay haddii shaqadaada marka istaag ay u badan tahay maalintii oo dhan yacni saacado fara badan yacni aad taagnaanayso xaaladan way kugu imaan kartaa sidoo kale sida hortiina ka arkaysaan haddii qofka yacni nooca kaba oo xiranaya ay yihiin kaba aad u adag yacni taagnaanshahaas uu ku taagan kabahaas adag yacni cilada qayb way ka qaadan karaan sida hortiina ka arkaysaan ama kabaha furan oo kale qofku u badan yahay kabaha buudka oosan u badnayn kabahan xiran yacni oosan u badnayn kabaha furan oo kale yacni qayb weyn ay ka qaataan ama kabaha hadday adag yihiin oo kale yani qofka dildilaacan waa isku arki karaa sidoo kale waxyaabaha u fududeyn kara qofka ama u nugleyn kara oo keeni kara waxaa ka mid ah qofka haddii yacni markuu gurigiisa joogo inta badan oosan wax kabaha xiranin yacni kaba la-aan cagihiisa oo bannaan yacni guriga uu ku socdo hadduu mutuleel yahay ama shamiito yahay ama dhul adag uu yahay haddii uu ku socdo ayadana ciladan waa imaan kartaa sidoo kale dadka sokorta qaba xaaladan way nugul yihiin waa lagu arkaa yacni waa yacni aad ay ugu soo laalaabataa sidoo kale qofka haddii fitamiinkan vitamin B3 uu ku yar yahay sidoo kale xaaladan way timaadaa sidoo kale dadka aad ku cayilan yani ciladan waa lagu arkaa oo risk factorska ama khataraha qofku u nugul yahay ay ka mid tahay qofka doo aad u cayilan oo xaaladan kusoo laalaabato miisaanka inuu dhimo waayo marka sidee loo xaliyaa yani qodobada aan soo sheegnay yani mid ka mid a doo ka dhashto sidee loo daaweeyaa daawadu waxay ku xiran tahay dildilaaca cirbahan wixii sababay oo qofka qodobada aan soo sheegnay duu fahamsan yahay badanaa meelaha ay ka yimaadaan waa tusaale oo kale qofka haddii taagnaanshihiisa ay aad u badan tahay yani taagnaanshaha inuu yareeyo waayo haddii uu yareyn karinna kabaha uu xiranayo yacni inay noqdaan kaba jilcan oo kabaha qofka uu xiran hadday jilcan yihiin qofka inta badan dilaaca ma dareemo sidoo kale nooca kabaha xiranaysa sida halka hortiina ka arkaysaan qofka saandalka oo kale kabahan la hadduu xirto inta badan ciladan way ku timaadaa marka qofka kaba buuda oo jilicsan ama wax jilicsan oo kale kabaha oo geliyo meesha ciribta yacni kabta udhexaysa wax jilicsan geliyo xitaa kabaha hadday adag yihiin wax jilicsan oo geliyo ayadana khatartan way yaraanaysaa oo dilaacaas way ka baaba'ayaan oo sigsaa inuu xirto kadib wax jilicsan oo geliyo يعني ساس أيضا قفك أو سمين إن سيدو كلا قفك عدي يعني علدي سيكتمد يعني مركو جروج الجوج أنت بدنا هدو كبلان أو الصعدة علدا أساس كتمد أسيجنا قفك يعني كبا إنه حرتوا جروج يعني كبا وجار وجروج وكل الأحسن كار إنه ساس سماية وعدي علدا يكتمد يعني كبلان تاس يعني مركو تجابي أسبوع على أسبوع كده بيوجان كرا قفك أيضا إن سوق القفك هتي سكر يوح لمدة أو قبا إنه سكر تسكو كنترول ياف يعني ciladan kasoo ka imaan kartaa sidoo kale vitamin B3 qofka dii uu ku yar yahay casharo hore ayaan kusoo sharaxnay vitamin B3 markuu yahay balse boomaatooyin la mariyo ayaa jiro oo maaragta markii cilada dhankaas ka timaado ama si gudba qodobadan kale markii xal loo waayo yani boomaato la mariyo ayaa jirto bahal cream oo kaleeto waaye sida hortiina ka arkaysaan sidoo kale qofka haddii uu cayilan yahay khatartan uu nugul yahay miisaanka inuu iska dhimo waayo yani miisaankas faraha badan cirbaha kusoo deganaya ayaa maaragtay cirbihii u nugleynaya dildilaaca markii aan fahanteen ayaan rajaynaa haddii cilada dhankaada ka timid sababa adiga aa sababta ay ka timid sidaas ayaa loo xaliyaa haddii marka intaas aa xal u raadisay oo istaaga faraha badan aa iska yaraysay ama kabihii adka yani aa ku bedeshay kaba jilicsan ama kabaha furan oo kale aa qaadan jirto buud kaba buud iyo wax lamid aa ku bedeshay sidoo kale maaragtay miisaankaada oo badnaa yani maaragtay iska yaraysay ama xanuunka sokorta aa qabto si fiican iskaga kontarasho daawada si sax u qaadatay haddii muddo 2 isbuuci ka badan sidaas aa samaynayso waxyaabahan kala duwan ciladahan kala duwan mid walba aa ka shakisay aa xalisay welina dildilaacay aan tartiib aan usoo reysanayn oo markaa fiirisa aad dareemayso inuu sidiisi yahay markaas qofka maaragtay wuxuu isticmaalaa ama wuxuu dhakhtarku qoraa oo siiyaa heat bulb balkan loo yaqaan hortiina ka muuqdo noocyo kala duwan ayaa jiro sidan oo kale qofka habeenkii markuu jiifanayo u marinaya balse waa muhiim markaa marinayso xitaa in istaaga faraha badan aad iska yarayso
kabaha yani furan yani iska joojiso kaba jilicsan aa qaadato buudkana aa xirato marka inaa fahantay ayaan rajaynayaa marka intaas adoo samaysay baashaan isticmaashay haddii weli maaragta aad dareemayso talooyin kale iyo daawooyin kale ayaa jira la isticmaalo ka tayo badan midda ama ka sarreysa balse intaana inta badan yani qofka ku filan markiina fahantay ayaan rajaynaya wixii su-aalaha qabtaan qaybta faalada ama kumatiga noogu reeba asalaamu calaykum